سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوضيال ميل والبا oo joogtaan ba qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida ciidamada dawladda federaalka Itoobiya iyo huwantooda garabka siinaysa ayaa hawlgal culus ka wada gobolka Wollo ayagoo magaalada Desi ee xarunta gobolka Wollo iyo magaalada ganacsiga Kombolja hawlgal culus ka wada si ay ugu soo qabtaan xoogag looga shakisan yahay inay halkaas ku dhuumaaleyseen oo xiriir la xoogaga TPLF ciidamada ayaa hawlgaladii ugu cuslaan dhulkaasi ka wada ayagoo ku beegsanaya xoogag ay uga shakisan yihiin inay ka tirsan xoogaga TPLF oo halkaas ku dhuumaaleysanayaan ciidanka TPLF ayaa gabi ahaanba gobolkaasi iskaga hulay asagoo u dhaqaaqay dhanka iyo waqooyiga magaalada Mekele sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa mar warbaahinta jiidooda kula hadlay waxa uu sheegay in la baabiin doono xoogaga mucaaradka aan mar dambana muuqdiyo maqalkooda la maqli doonin asagoo sheegay in meel kasta lagaga dabeytoogi doono sidoo kale madaxda TPLF waa afayeenkooda Getachew Reda ayaa waxa uu sheegay inay uga baxeen dhulkaasi xeelad dagaal haseeshee arrintaasi kama turjumayso TPLF inay waxa wadaya ciidanka federaalku barbar dhigi karto ay hadda ku hadhay qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan haddayna u gudagal wararkeena oo faahfaahsan xoogaga mucaaradka isbahaystay ayaa mar ahayd inay ku hanjabi jireen inay qabsan doonaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayadoo warbaahinta heer caalami ay aad u buubuunin jirtay sawirrada la soo qaadan jiray ee xoogagaasi ayagoo qulqulaya una hanjabaya inay dawladda federaalka kursiga ka tuuri doonaan haseeshee arrintii si dhaqso ah ay isu bedeshay ciidanka federaalka dawladda Itoobiya ayaa ilaa waqtigii uu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya dhaxda u guntaday inuu la dagaalamo xoogaga mucaaradka si falka ula dagaalamo waxay soo hoyeen guushii ugu cuslayd ciidanka federaalka ayaa gobolka Wollo gudaha u galay ee xarunta gobolkaasi ay ciidanku gacanta ku dhigeen xoogaga TPLFna halkaasi lagu xasuuqay xoogaga TPLF ayaa dhulkaasi iskaga ruqansaday ayagoo ruqansaday dhulka ay ka soo duuleen waqooyiga dalka Itoobiya ciidanka federaalka ayaa 24 saac la soo dhaafay waxay soo hayeen guushii ugu ballaarnayd ayagoo xarumihii difaaca ay kaga jireen xoogaga TPLF gabi ahaanba burburiyay ciidanka dawladda Itoobiya ee qaybta cirka ayaa awoodaha ugu badan geysanaya ayagoo u diiday xoogaga TPLF in dhulka hubkii ay ku qabsadeen ama taangiyadii ciidanka ay ka qabsadeen waqtiga dagaalada culus gobolkaasi ka wadeen inay ila goostaan dhanka iyo waqooyiga dalka Itoobiya ayaa u diiday xoogaga TPLF ayaa gabi ahaanba hubkooda dhulka lala simay ayagoo faramarana halkaasi iskaga kala baxsaday ciidanka dawladda uu hogaaminaya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa hawlgaladii ugu cusbaan halkaasi ka wada magaalada Desi oo xarunta gobolka Wollo iyo magaalada Kombolja magaalada istiraatiijiga isku xidha dalka Itoobiya intiisa badan ayaa halkaasi waxa laga wada hawlgal cusub ayadoo guri magaalooyinka loo baarayo ciidanku ay halkaasi uga shakisan xoogii mucaaradka ee halkaasi lagu jabiyay inay shacabka ku dhex dhuumanayaan ciidanka dawladda ayaa wadooyinka oo dhan taagan magaalada duleedkada yaacaya meel kasta hawlgal culus ka wada cid kasta uga shakiyaan xoogaga TPLF taageero u yihiin ama dhankooda u janjeeraan xabsiga u dhaadhicinaya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waa Dr. Abiy Ahmed ayaa mar ujeedo hore ku sugnaa xalay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa mar maanta walbaahinta kula hadlayay jeedo hore dagaalku ka socdaan asagoo aad u xamaasaysan ugu hambaliyay shacabka dalka Itoobiya guusha ciidankooda inay u dabaaldegaan ciidanka Itoobiya ayaa guushii ugu baday soo hayay ilaa waqtigii dagaalku uu ka bilowday galbeedka gobolka Axmarada ciidanka dawladda federaalka oo aad u hubaysan ra'iisul wasaaruhu oo dhex socdo ayaa hawlgaladii ugu xanaana ka socda gobolka Wollo meel ay 3 bilood dagaal xanaana ka socdeen xoogaga TPLF markii ugu dambeysay gacantooda gashay ayaa hadda laga faramarojiyay jabka soo gaaray xoogaga TPLF ayuu caalamku aad u la yaabay ayagoo awood badan isbidaya waqti dhaweeyay warbaahintuna ay aad u buunbuurinaysay xoogan inay aad u hubaysan yihiin ay qarkana u saarayeen caasimadda Addis Ababa gudaha u galaan caalamka ayaa aad uga qeyliyay xaaladda dalka Itoobiya oo lagu sheegay inay xoogani mucaaradka qarka u saaray inay gabi ahaanba dalka qabsadaan hase yeeshee caalamka afka ayuu joogda gabay dagaalka ka socda dalka Itoobiya ayuu caalamku ku kala tagay iyadoo reer galbeedkuna intooda badan ay taageereen xoogaga mucaaradka oo filayeen inay dalka Itoobiya qabsan karaan ciidanka federaalka ay gabi ahaanba jabiyeen sidoo kale dalalka bariga dhexe ayaa intooda badan taageeraya dawladda federaalka Itoobiya dalka Shiinaha ayaa ugu dambeeyay oo wacad ku maray dawladda Dr. Abiy Ahmed inay sii shaqeyn doonto ay garabna taagan yihiin dalalka sidoo kale la filayo inay caawiyeen dawladda federaalka awoodooda inay dib ay u soo kobciyeen waxa kamid ah dalalka Ruushka Shiinaha Turkiga Imaaraadka iyo wadamo badan oo ka tirsan Khaliijka dagaalka Itoobiya ayaa aad cidka ugu sii shareeray bilihii ugu dambeeyay ayadoo hadda ay u badan tahay inay dawladda federaalku gabi ahaanba dalka qabsato xooga TPLF ayaa qax badan laga dareemayaa iyo isku dhaxyaac badan ayuu saraakiisha TPLF ay si talantaalaysa u soo kala hadlayaan
waxa ugu dambeeyay afhayeenka TPLF Getachew Reda oo sheegay dagaalkii ka socday waqooyiga dalka Ethiopia inay xoogga TPLF wali awood u siiyay inay dagaalamaan hase yeeshee arrintaasi kama turjumayso inay xoogga TPLF awood leeyihiin xoogga TPLF ayaa laakiin iyagoo qulqulaya kala cararaya una sii cararaya dhanka gobolkooda ama magaalada Mekele madaxweynaha Tigrayga ayaa sheegay inay dagaalka sii wadi doonaan ra'iisul wasaaraha xukunka dhaafin doonaan hase yeeshee hadda ayaad moodaa ayaga inuu guryaha biyo ugu soo galay ra'iisul wasaaraha iyo saraakiisha uu hogaaminaya ciidanka federaalka hogaaminaya ayaa wacad ku maray inay marnada ka hari doonin xoogga TPLF ayna uga daba tagi karaan meel kasta oo ay galaan waxaa la rajeynayaa hadda dagaalku inuu wajahmi doono dhanka gobolka Tigrayga la iskuna tagi doono magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigrayga dowladda federaalka ayaa waxay aaminsan tahay in la soo celiyo amniga dalka iyo midnimadiisa hase yeeshee xoogga TPLF inay wali ku sii dagaalami doonaan waqooyiga dalka Ethiopia ama magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigrayga ayaa aad kugu haya xooggan haddii looga daba tago magaalada Mekele waxaa la filayaa inay buuraha gali doonaan maadaama dowladda federaalku una qabateen cir iyo dhul ama xadadka ay dalalka Ethiopia la wadaagta gabiyaha baa ciidanka dowladdu ku sugan yihiin ciidanka dowladda federaalka noocyadooda kala duwan ayaa lagu wargeliyay saraakiisha TPLF inaan jaaris loo siinay ku baxsadaan ilaa ay sharciga la horkeeno dowladda federaalka ayaa u aragtaa caqabada dalka haysata dhaqaale yarida burburka baaba dalka soo food saaray halkii sane la soo dhaafay inay mas'uuliyadda qaataan xoogga TPLF ugu horeeyay Getachew Reda iyo Gabrasiyon Mikail iyo Getachew Reda oo saraakiisha TPLF ugu sareysa kan ku qasbay shacabka Tigray inay la dagaalamaan dowladda federaalka Ethiopia qodobka kale warkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah qoomiyadda Axmaarada iyo Canfarta ayaa noqday qoomiyadaha ugu horeeyay ee ciidanka federaalka u dabaaldegay guusha ay soo hooyeen dabaaldegyo weyn ayaa maanta ka socda gobolada Canfarta iyo Axmaarada ayadoo halkaasi lagu arkay ciidanka federaalka saraakiisha iyo ra'iisul wasaaraha oo sawiradooda boorar waaweyn lagu dhajiyay guusha ciidankana lagu hambalyeeyo Canfarta iyo Axmaarada ayaa waxay noqdeen qoomiyadaha kaliya ee sida lifta ula dagaalamay xoogga TPLF Canfarta ayaa ilaa waqti uu ra'iisul wasaaruhu dagaalka ka bilaabay gobolkooda waxay ula dagaalameen TPLF si life to life ayagoo guryaha ka soo saaray saraakiisha TPLF dowladana u soo gacan galiyay dagaalka ugu kharaar la galay xoogga TPLF soo kala qoomiyadda Axmaarada ayaa iyadu waxay tahay qoomiyadda kale ee dagaalka cusub la gashay xoogga TPLF jamaacadda Fano difaaca shacabka Axmaarada ama soo celinta midnimada dalka Ethiopia ayaa waxay sheegtay inuu dagaalku sii soconi doono ciidankooduna ay ka hawlgali doonaan meel kasta oo amar lagu bixiyay inay ka hawlgalaan ciidanka federaalka hadda jabhadda ugu awoodda badan ka garab dagaalantahay waxay tahay Fano ilaa waqti ay heshiiska dowladda federaalka la gashay aan hubka laga dhigin wali la isku wada in ay xukunka qaban doonto qodobkeena ugu dambeeya wararkan waxaa kamid ah xoogga Ola ee jabhadda xoreynta shacbiga Oromiya ayaa dagaal kharaar ka wada dhul aad uga fogeen magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa wacad ku maray in uu ayagana jabin doono markuu TPLF ka soo takhaluso ayagana in loo soo jeesani doono laakiin hawlahooda ay iska sii wataan Ola oo heshiis xooggan kula jirtay xoogga TPLF ayaa hadda waxaa ka baxay awoodoodii midigta oo xoogga TPLF Ola ayaa la garanaynin meesha ay ku dambeyn doonto xoogga gafooda isdari doonaan qola ay guushu raaci doontana la garan maayo xoogga Ola ayaa taageero ballaaran ka haysta qoomiyadda Oromada oo ka soo dhaxbaxeen una sheegeen inay u dagaalamayaan xoreynta gobolka Oromiya waxaa ka dagaalamay jabhado aad u badan oo magacyo badan kala wata hase yeeshee dowladda federaalka way ka go'an tahay inay mucaaradka lacagta mariso cid kasta oo ga shikido inay xooggan mucaaradka xidhin leedahayna sharciga la horkeeno tan iyo kulanti dambe wacan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh